kulankii khamiislaha ahaa ee maamulka dowladda hoose ee degmada Carmo oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha degmada Carmo injineer Maxamed Cali Shire ayaa ahaa mid looga hadlayay habsami u socodka shaqo ee maamulka dowladda hoose ee degmada Carmo iyo sidii looga hortagi lahaa xaalufinta deegaanka. kulankeenan wuxuu ahaa kulankii khamiislaha oo caadiga ahaa oo aynu isugu imaan jiray ka maamulo ahaan iyo ka shaqaale ahaanba xarunta dowladda hoose. kulankan saaka waxa looga hadlay shaqooyinka caadiga ahaa oo horey u socday iyo dardargelintooda iyo waxyaabo soo kordhay oo degmada ku soo kordhay oo ay ka mid tahay xaalifinta dhulka lagu hayo sida dhuxusha, ugaarta iyo dhulal fara badan oo dad xeeranayaan oo dhulkii ay dadku degi jiray ama reer miyigu ka darman jiray ah. intaasi kadib xubnaha ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka degmada Carmo Saciid Cabdiraxmaan Qablan iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada Carmo Maxamed Cabdullaahi Jibriil iyo taliyaha saldhigga ciidanka booliska degmada Carmo Maxamuud Cali Mere ayaa kormeer ku bixiyay deegaanka Madho oo qiyaastii 30 kiiloomitir ka xiga dhinaca bari degmada Carmo kaasi oo ka socday xirmaysi sharci darro sida ay sheegeen maamulka degmada. waxaa lagu sameeyay cagaf baa la geliyay cagaftaas ilaa dhowr iyo 10 kiiloomitir ayaanu la soconay xagga balacana ilaa 5-6 way ka badan tahay saan u malaynayo. waxaa la ku wargeliyay maalin afraad in ay cagaf ku jirto jaanis maanta aan u helnay inaanu soo aadno dhibaatada deegaanka lagu hayo ayayna ka mid tahay. waxaa iibsaday sida nala ku wargeliyay niman ganacsato ah oo reer Boosaasood ah. ganacsatadaas waxaan dowladda gobolka ka codsanaynaa, wasaaradda arrimaha gudaha ka codsanaynaa, wasaaradda xanaanada xoolaha la ka codsanaynaa, wasaaradda deegaanka ka codsanaynaa arrintaa inay nala arkaan oo nala hubiyaan maadaama ay dhibaatada iyo qeyladhaantaasu ka timid dadweynihii deganaa deegaankaas. waxaanu kormeer hawleed oo heer degmo ha ahaado amni ha ahaado dowladaha hoose aan ku kala bixinay deegaanka waxaanu haynaa dhulka aan meesha ku aragtaan oo dhul dad gaari ay ka dhiganayaan dhul beeleedo oo idana gaara ku qabsanayaan dadkii xoolaha dhaqatada ahaana uu dhex degan yahay aanna waxba la weydiinayn kii hadlana edaa beesha la odhanayo deegaankii guryihii baadiyaha dhaqanka ahaa iyo dhulkii oo saa loogu dhexeeranayo. kormeer baan ku soo aadnay muddo maalmaha kan arrimaha la sheegayo dhul labaad guur lagu sameeyay dhulkii aanu loo sheegana waa haddana ma dhex mareynaa wax badan ilaa 12 kiiloomitir ayaa cagafyo la geliyay wax qeyrnaasa weeye dhulkii xooluhu daaqi jireen weeye oo lagu baxsan jiray dadka reer guraaga ah. waxaan lagu sameeyay waxaan loo fiirsan karin 100% waxaa la rabaa in wax laga qabto. anagu inta tabarteeda ahayd waanu nimi ciidan ahaan iyo maamul ahaanba kulliba arrimahaas waxa weeye waxaa la rabaa ay u baahan tahay in wax laga qabto dadkii arrimahaas sameeyay tallaabo sharciga laga qaado. kormeerkaasi kadib gudoomiyaha degmada Carmo injineer Maxamed Cali Shire ayaa cid kasta oo ku shaqo leh ilaalinta deegaanka waxa uu ugu baaqay inay kala qayb qaataan maamulka degmada Carmo sidii looga hortagi lahaa xaalufinta deegaanka. wasaaradaha ku shaqada leh sida wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda deegaanka waxaan u soo jeedinaynaa ama ugu baaqaynaa in ay yimaadaan nalana arkaan dhibaatada aanu sheegayno ama dhibaatada aanu qeyladhanaanta ka keenay. maxaa yeelay waa muhiim in ay indhahooda ku arkaan yimaadaan arkaan annaga ayaa insha allahu tacaala meelaha dhibaatadu ka jirto iyo sida wax yihiin waanu tusaynaa laakiin waa inay maraysaa iyaguna ay arkaan oo indhahooda ku arkaan weeye oo ay yimaadaan. marka waa muhiim in la shaqeeyo hay'ad kasta ama wasaarad kasta ayna dowladdu waa package oo isku xiran tahay wixii ma garanaysaa kaga aadan garab baan ku siinaynaa waana ku gacan siinaynaa
si kastaba ha ahaatee degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa ka mid ah degmooyinka dhulkooda uu ku baxo dukumeenti sharciyeysan kaasi oo ay bixiso dawladdu waxaana dhammaan dhulka gacan ku hayntiisa iyo ansixintiisa iska leh maamulka dawladda. Maxamed Barre Saciid Maxamed Dadaal, raadiyaha iyo TV-ga dawladda Puntland, degmada Carmo ee gobolka Bari.